shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan koonfurta Soomaaliya ayaa qoryaha qaatay iyagoo iska difaacaya ururka argagixisada ah ee Al-Shabaab. Meelo badan ayaa laga saaray ururka argagixisada ah, isla markaana eryadkoodii waxaa lagu sheegay hawdka. Waxaa laga yaabaa in laga guuleysto argagixisada. Fiidiyowga sheergareeya ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa dagaalkan qayb ka ah. Cararka iyo eryadka lagu eryanayo argagixisada ayaa hawdka la galay, waxayna u muuqataa in la soo afjari doono sanadkan ururka argagixisada ah ee Al-Shabaab. Waxay u muuqataa in dadka Soomaaliyeed ogaadeen awoodooda iyo cududda ay leeyihiin haddii ay isgarabsadaan. Waxay arrintani ka dhalatay ciqaabta iyo dibindaabiyada iyo dilka ay u geysanaysay argagixisadu shacabka Soomaaliyeed, iyadoo dad badan ku laysay isbuucyadii u dambeysay koonfurta Soomaaliya siiba gobolka Hiiraan. Dhibta iyo dibindaabiyada ay geysanayaan ururkan argagixisada ah ayaa shacabka Soomaaliya u dulqaadan waayeen, waxayna go'aan ku gaareen inay iska difaacaan deegaanadoodana xoreystaan. Haatan ciidamada Soomaaliya ayay arrintan u dhiirigelin u tahay. Gabdhaha Soomaaliyeed ayaa iyaguna dagaalkan qayb ka ah. Waxaa laga yaabaa in dowladda Soomaaliya ay sanadkan iyo shacabkoodu ay ka guuleystaan argagixisada. Fiidiyowga sheergaraya saaxiibayaal waa caaqilkii. Dadaalka loogula jiro in lagu xoreeyo gobollada koonfurta Soomaaliya ayaa halkaasi aad uga socda, iyadoo shacabka Soomaaliyeed dhammaantood u diyaar garoobeen inay sanadkan jihaadka galaan dagaalkan lagaga soo horjeedo argagixisada Al-Shabaab ee dibindaabiyada ay caadaystay dhiigga iyo dibindaabiyada shacabka Soomaaliyeed. Sheergaraya saaxiibayaal walaalayaal waa caaqilkii.